kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij wareedkeenan qodobada daawan doontaan waxa ugu waaweyn Trump oo aqoonsigii Somaliland weji cusub u yeelay doodii taagneyd oo mar kale ku dhawaaqaysa in ay kordheen dhacdooyinka waaweyn ee la xiriira arrimaha kala duwan dunida oo la yaaban waxa socda iyo mowqifka Somaliland ay gaartay cabsi badan oo la wajahayo wararkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyo kala duwan iyo go'aano waaweyn oo hadda la gaaray ayaan mowduucyada la xiriira ku soo gudbin doonaa waxaase aad u dardargelin doonaa xogaha arrimaha la xiriira iyo wararka la helay balse marka hore si aan faafahinta u gudagalno waxaan ka dalbanayaa in muuqaalka aad noo share garayso leeg saarta meel fogaarsii qayb ka noqo saaxiibada nagu xiran ee hela xogaha xasaasiga iyo warbixinada halkan inaan ku soo gudbino adigoo rukumanaya barteena Race TV furagan baleelka digniinta aragtidana qaybta hoose faalada ama commentiga inoogu reeb waa hagaag aynu ku bilownee waxaa durbaba la soo warinayaa in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J Trump uu aqoonsigii Somaliland weji cusub u yeelay iyada oo ay cabsi badani ka taagan tahay tallaabooyinkan aadka u xoogan ee dhaqdhaqaaqyada Mareykanka iyo Israel ay ku doonayeen aqoonsiga Somaliland inay ku sii adkeeyaan heerka uu gaaray iyo waliba baqdinta sida gaarka hadda loo qabo ee arrimahan la xiriira iyada oo lagu saleeyay waliba in ay kordheen dhacdooyinkan ayaa haddana mowqifyada kala duwan ee la gaaray waxay yihiin kuwii ugu dambeeyay ee siyaasadeed ee taagnaa iyo sidoo kale go'aanada laga gaaray heerka ugu dambeeya ee mowqifyada dhinacyadan kala duwan iyo qorshaha ay ka leeyihiin go'aankooda ugu dambeeya ayaa ah dooda aadka u culus ee waliba taagan waqtiyadii lasoo dhaafay. Trump waxaa la rumaysan yahay in duulaanka uu ku qaaday Iran iyo waxa ka socda bariga dhexe uu saameynteeda gaarsiin karo geeska Afrika iyo dowladaha uu iskaashiga amni iyo dhaqdhaqaaqyada kala duwan la leeyahay ama saldhigyada uu ku leeyahay. Waxaana aqoonsiga Somaliland horay ballanqaadkeeda Mareykanka uu ugu xiray in saldhig military oo weyn oo istiraatiiji laga siiyo Somaliland taasi oo dekadii Berbera iyo saldhigii hore ee Imaaraadka ay suurtagelin kartay in Mareykanku uu la wareego. Taliyaha Africom ayaana hore u gaaray halkaasi oo dhaqdhaqaaqyo ka waday balse tani waxay si gaar ah hadda u muujinaysaa cabsida weli laga sii qabi karo dhaqdhaqaaqyada kala duwan iyo go'aanada waaweyn ee mowduucyadan aadka loo hadalhayo hadda heerka ay gaareen baqdinta laga qabo in mar kale dhinacyadu ay gacan gaaraan ama ay markaasi dunidu sidoo kale dhinaca Somaliland dhankeeda culeysaadku soo kordhi karaan. Waxaana dalalkii caalamka qaarkood oo hore u digaya hadda ay ka yaaban yihiin go'aanka Somaliland ay qaadatay iyo doodii hore u taagneed mowqifkeeda oo weli sideedii ah. Aqoonsiga xukuumadda Somaliland ee Cabdiraxmaan Ciro uu hogaamiye ayaa la ogaaday in hal arrin darteed ay u gilgileen geeska Afrika dood badanna ay ka abuurtay iyada oo cabsi badani hadda laga qabo taageerada Somaliland ay u muujisay Israel in ay markaasi geeska Afrika gaarsiin doonto loolanka Iran iyo Xuutiyiintu ay wadaan iyaga oo ka hortagaya qorshayaasha waaweyn ee Mareykanka iyo dhinacyada kale ee go'aanada ku gaaray sidii ay u soo afjari lahaayeen duulaanna ay ugu qaadi lahaayeen dhinacyada ay hayaan. Mowqifyada aadka u waaweyn ee hadda la gorfeynayo ee siyaasadeed ayaa ah in ay kordheen dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay iyo tallaabooyinkii ugu cuslaa iyada oo ay mar kale ku dhawaaqeen dhinacyadu go'aano waaweyn ayaa tani muujinaysaa in sare loo sii qaaday qorshayaashan iyo kuwo kale oo waaweyn iyada oo ay sidoo kale diiradda saareen dhinacyadani in markaasi la kordhiyey dhaqdhaqaaqyada iyo tallaabooyinka aadka u culus ee waqtiyadii lasoo dhaafay aadka u dardargelinayay. Waxaana doodii taagneyd ee hore ee la xiriirta arrimaha aqoonsiga iyo geeska Afrika go'aanada isku lifaaqna Xasan Sheekh qorshihiisa iyo wararka kaleba waxay ahaayeen dhammaantoodba doodo taagan oo aad u culus balse hadda xogaha la helayo waxay muujinayaan in aqoonsiga Somaliland uu halkan arrin darteed oo ah taageerada ay u muujiyeen Israel uu hadda u gilgilayo geeska Afrika iyo dunidaba. Waxaana laga yaaban yahay dooda taagan ee aadka u sii dardargelisay
qorshayaasha waaweyn ee miisaanka culus ah iyo mowduucyada dardargeliyey tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee go-aanada waqtiyada lasoo dhaafay taagnaa. Iyada oo lagu dhawaaqay qorshayaal kala duwan ayaa haddana waxaa tani ay muujinaysaa in lasoo afjari doono dhacdooyinka waaweyn ee arrimahan la xiriira iyo mowqifyada siyaasadeed ee go-aanada dhinacyadani ay ku gaarayaan ay ka dhigan tahay in lasii dardargelinayo qorshayaashuna ay gaareen heerarkii ugu sarreeyey. Qorshe kasta oo taaganna waxaa lasoo warinayaa in mowduucyo waaweyn ay ka dambeeyaan. Dowladaha Turkiga iyo Israa'iil ayaa la rumaysan yahay in ay ka midaysan yihiin mowqifka Somalilan iyo sidoo kale go-aanka ay ka gaarayaan aqoonsigeeda, iyada oo la ogaaday in labadan dowladood ay si gaar ah qayb uga yihiin dowladaha ka shaqeynaya waqtiyadii lasoo dhaafay tallaabooyinka aadka u xoogan ee arrimahan la xiriira. Iyada oo mar kale ay ku dhawaaqista arrimahan ay mar kale xoojin doonaan, si gaarna tallaabooyinkani ay ugu yeeli doonaan doodaha waaweyn ee caalamka ka taagan mowqifyo kale, iyo in si gaar ah loogaga jawaabo xaaladihii ugu dambeeyey. Mowqifka taagan, go-aanka xasaasiga ah ee arrimahan la xiriira iyo mowduucyada sida gaarka ah loo lafagurayay waqtiyadii lasoo dhaafay, iyada oo ay u muuqato in Trump iyo kuwo kale oo taageersan aqoonsiga Somalilan ama ka shaqeynayaba ay muujinayaan tallaabooyinkii ugu dambeeyey iyo mowduucyada siyaasadeed ee taagnaa, waxaana ay markaasi hadda xoojiyeen dhacdooyinkan iyo dhaqdhaqaaqyadan, sidoo kalena aad u sii dardargeliyeen qorshayaasha kama dambeysta ah ee arrimahan ku saabsan, iyada oo la ogaaday weliba in ay si degdeg ah arrimahani ku xoojiyeen, sidoo kalena ay haddaba kusii dardargeliyeen tallaabooyinkan, sidoo kale ka dhigan inay xoojinayaan, iyada oo weliba ay mar kale ku dhawaaqi karaan dhinacyadu go-aanadii ugu dambeeyey. Mowqif siyaasadeedan taagan, mowduucyadan xasaasiga ah ee lagu garamayo iyo mowqifyada kale ayaa mar kale sidoo kale hadda muujinaya in dowladaha caalamku ay aad u sii xoojinayaan. Turkiga iyo Israa'iil waxaa mowqifkay ka siman yihiin la sheegay inuu yahay in labaduba ay doonayaan aqoonsiga Somalilan, rajo badan ay uga jirto in iskaashiga amni iyo difaaca ee ay hore u saxiixeen ay sii adkeeyaan. Waxaa xogaha la helayo ay muujinayaan in Somalilan ay dalalkii dunida ee qaarkood taageersanaa marka laga tago kuwii kale ku cadaadinaysaa in si degdeg ah ay u aqbalaan aqoonsiga Somalilan, iyada oo Israa'iil ay tahay dowladda kala shaqeynaysa arrimahaasi Somalilan. Mowduucyada waaweyn ee taagnaa maalmihii lasoo dhaafay ee arrimahan la xiriiray ayaa ahaa kuwo aad loo hadalhayay iyo dhaqdhaqaaqyo waaweyn, waxaana tani ay qayb weyn ka noqon doontaa dhacdooyinka aadka u xoogan iyo dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee arrimahan la xiriira, iyada oo ay si gaar ah ugu dhawaaqi doonaan go-aanka ugu dambeeya ee kama dambeysta ah dhinacyadan la rumaysan yahay in qorshahani ay wax ka wadaan. Mowduuca ugu weyn ee hadda taagan waa in ay markaasi tallaabooyinkani gaareen heerarkii ugu sarreeyey, go-aanaduna ay hadda yihiin kuwa aad u culus, iyada oo ay mar kale u muuqanayso in si degdeg ah loo qaadi doono tallaabooyin aad u xoogan iyo dhaqdhaqaaqyo markaasi tallaabooyinkani ka dhignayd, waxaana tani markaasi ay muujinaysaa hadda mar kale in loo qaadi doono dhaqdhaqaaqyada kala duwan iyo tallaabooyinka aadka u xoogan ee sida gaarka ah hadda dowladaha qaarkii ay kaga shaqeynayaan, iyada oo Trump iyo dhinacyo kale oo ku lug leh go-aanadan kama dambeysta ahna hadda ay wadaan dhaqdhaqaaqyadii ugu xooganaa oo ay markaasi si gaar ah weji cusub ugu yeelayaan kiisaska aqoonsiga Somalilan la xiriira iyo dhacdooyinka taagan, waxaana ay markaasi si degdeg ah uga falcelinayaan dhinacyadu go-aanadii ugu dambeeyey iyo tallaabooyinka arrimahan la xiriira, iyada oo dowlado dhowr ah ay isku raaceen haddaba sidii go-aanadaasi loo dardargelin lahaa ama loo xoojin lahaa. Waxaa durbaba lasoo warinayaa in Cabdiraxmaan Ciro, madaxweynaha Somalilan, uu si toosa markan ugu bareeray in heshiisyo iskaashi ah uu la gaaro dowladaha taageersan, taasi oo uu ku siinayo qandaraasyadii ugu waaweynaa
iyo mashruucyadii ugu xooganaa oo ay dowladahaasi si gaara uga helayaan dhanka Somaliland ayaa hadda u muuqanaysa inay kordheen dhaqdhaqaaqyadani, waxaana tani ay muujinaysaa tallaabooyin aad u culus oo gaaray heerarkii ugu sarreeyay, iyada oo ay si degdeg ah markani u qaadayaan falcelinta jawaabaha aadka u culus iyo tallaabooyinka la filayo in ay xukuumaddu ku jawaabto dhacdooyinka taagnaa waqtiyadii lasoo dhaafay iyo mowduucyada aadka u xoogan ee la hadalhayay ayaa dhammaantoodba ahaa kuwo doodo waaweyn oo caalamiya abuuray iyo dhaqdhaqaaqyo kala duwan, waxaana qorshahani hadda uu yahay kii ugu weynaa ee tallaabooyinka kama dambaysta ah ama go'aanada aadka u culus ay dhinacyadani ku gaareen. Qorsheyntii ugu dambeysay ayaana hadda u muuqanaysa in si gaar ah loo qaadi doono tallaabadan aadka u xoogan iyo dhaqdhaqaaqyadan ee la rumaysan yahay inay socdeen maalmihii ugu dambeeyay ee tallaabooyinkan sii xoojiyay, waxaana ay hadda u muuqanaysaa sidoo kale in si gaar ah loo qaadi doono dhaqdhaqaaqyadani ama tallaabooyinkan, iyada oo dowlado kale oo hor leh ay muujinayaan sida kama dambaysta ah ee arrimahan loo xoojinayo iyo dhacdooyinka aadka ugu xoogan ee u muuqata in ay si kama dambaysa in ay markaasi si xoojiyaan dhacdooyinka iyo tallaabooyinkan, iyada oo ay isku raaceen tallaabooyin aad u xooganaa waqtiyadii ugu dambeeyay iyo go'aano waaweyn oo ka dhigan in ay gaareen heerarkii ugu sarreeyay ee aqoonsiga, taasi oo sii xoojinayay waqtiyadii lasoo dhaafay. Dowlado hor leh ayaa is-afgarad rasmiya ka gaaray tallaabooyinka aqoonsiga Somaliland la xiriira, waxaana taasi ay keentay inay sii kordheen dhaqdhaqaaqyadii ugu waaweynaa ama aadka u cuslaa ee taagnaa waqtiyadii lasoo dhaafay, sidoo kalena ay socdeen tallaabooyinka arrimahaasi la xiriira, iyada oo hadda la rumaysan yahay in go'aanka ugu dambeeya ee dhinacyadan hadda ay gaareen iyo dhaqdhaqaaqyada aadka u xoogan ee socday waqtiyadii lasoo dhaafayba inay ahaayeen kuwa aad u waaweyn, ayaa haddana mowqifyada jira waxay kasii dhigayaan in dowladahani ay u sii midoobi karaan sidii is-afgarad rasmi ah iyo qorsho aad u culus oo aqoonsiga Somaliland la xiriira. Waxa xigi doona go'aanka la gaari doono iyo tallaabooyinka la midka ahba aad markaasi is-afgaradyo ay kaga gaarayeen. Xogaha hadda aynu helnay waxa ay muujinayaan in Somaliland si gaar ah markani ay u helayaan taageeradii ugu weyneed ee la xiriirta go'aanada kama dambaysta ah ee arrimahan quseeya iyo tallaabooyinka aadka u culus ee lasoo warinayo inay gaari karaan dhinacyadani. Go'aanada ugu dambeeyana markaasi iska leeyihiin ayaa waxa ay u muuqataa in ay sidoo kale tallaabooyinkii ugu dambeeyay ay la xiriirinayso in la dardargeliyo qorshaha ugu dambeeya, ayaa haddana waxaa mar kale la eegayaa tallaabooyinkan iyo qorshayaashan kale ee aadka u culus ee weliba dowladaha qaarkood ay ku tilmaameen qorshayaashii ugu waaweynaa iyo mowduuc siyaasadeedkii ugu cuslaa in hadda uu taagan yahay, ayay tahay jawaabta aadka u culus ee la filayo in dhinac kasta uu ka bixin doono dhaqdhaqaaqyadan aadka u xoogan iyo tallaabooyinka weliba hadda loo qaadayo si ku meel gaar ah ama kama dambaysa dhinacyadu inay uga soo jawaabaan tallaabooyinkan. Waxaana mar kale la filayaa in aad loo sii dardargeliyo qorshaha arrimahan la xiriira iyo tallaabooyinka aadka u xoogan ee lasoo warinayo inay gaareen heerarkii ugu sarreeyay kadib go'aano waaweyn oo aad u culus oo socday waqtiyadii lasoo dhaafay.